ayaxan oo bilihii ugu dambeeyay laga dareemayay deegaanada Puntland ayaa saameyn xooggan ku yeeshay qaybo ka mid ah gobollada Puntland. dadka deegaanka ayaa siyaabo kala duwan uga hortaga waxyeelada ayaxa, waxaana saameynta ugu badan ay ka soo gaartaa beeralayda Puntland kuwaas oo waxyeeleeyo dalagga kala duwan ee ay ku beertaan beeraha. degmada Carmo ee gobolka Bari oo uu ku teedsan yahay dhul beereed aad u ballaaran ayaa maalmihii ugu dambeeyay laga dareemayay saameynta ayaxa, taasi oo dadku ay siyaabo kala duwan uga hadleen. gudiyada beeraha deegaanka degmada Carmo ayaa walaac xoogan ka muujiyay saameynta ayaxa, waxaana ay warbaahinta dowladda Puntland uga warbixiyeen siyaabaha kala duwan ee uga hortagaan saameynta ayaxa. وأيح مقالة دو هستا يدتو ku hayo beeralayda Carmo waa deegaan aad u ballaaran oo wuxuu leeyahay beero badan. beeraha waxa kamid ah garaac, waxa kamid ah ciiradhame, waxa kamid ah maxalliga Barookle oo laba aaga, waxa kamid ah dhud oo laba aaga. beerahaas dhamaantood ay waa wada maray. dalagii vegetable-ka ahaa oo qudaarta ahaana waa cunay, geedihii fruitka ahaa oo geed miroodkiina wuu cunay. dadka wuxuu u geystay dhibaato hor leh. sanadka dalaggaan ay hadda rabeen inuu u soo go'o oo u beernaa uu wada cunay way ka hareen. ilaa iyo imikana si fiican buu ugu degan yahay. maanta hadduu Barookle ka tago wuxuu tagayaa tan ciiradhame. biri ciiradhame waa laga wuu ka kacayaa, wuxuu tagayaa meesha la yiraahdo dhud buu tagayaa. arrimahaas markaa waxay ku yeesheen dadkii awalba iyadoo beeralaydu dad iska tawar daran ahayd oo dalaga waxay ku beeranayaan haystay baa waxa ku timid dhibaatada ayax uu ku reebay. waxaa laga yaabaa ayaxa dhibaatadu reebay rag ka mid ah beeralaydu inaysan ka soo kaban karin sababtoo ah dhaqaale uu haystay uu soo deyn qaatay baa intaas ahayd. deegaanka waxa ku habsaday ayax yaa badan oo aan weligeena arag. deegaankii dhammaantiis waa ku habsaday. intii deegaanka ay Carmo, Jimbaca, Faluuja, Barookle waxaas oo dhan oo deegaanada iyo xagga kan Sanaag kullee waa ku habsaday ayaxaas oo ayax tiro badan. xoolihii daaqii roobkii Ilaahay shubay sanadka intii la daaqay intii aan la daaqinba wixii magaranaysaa Ilaahay saaray oo baadaha meesha ku fariisto wuxuu ka dhigayaa wax soogan oo baabi'inaya. deegaano badan bay nagala soo hadleen reer baadiyuhu. aad buu ugu fadhiyaa waana xoogan yahay. qadila waa ku qayliyeen, qadila ku ray waxbay ku tumaaneen male ma kacayo. habeen iyo maalin dhirta waa ku fadhiyaa. hadda waxa way deegaankan maanta waxaan joognaa jungalka ilaa saaka waa la qaraacay, waa la tumaayay, taayeeraha lagu gubaayay, weli waa fadhiyaa. marka dadka yar oo beeraha ku jira waxaan rabnaa in dawladdu ay ilaaliso, gaar ahaan wasaaradda deegaanka iyo beeruhu inay ilaaliso. waa ku mahadsan yahay wasiirku. mar buu qayladhaantayadu gaadhay, wuxuu noo soo diray tiimkiina weli information naguma aysan soo celin. hadda qayladhaantaana saasaan uga daba keennay. wasiir waxaan codsanaynaa tiimkii mar labaad soo celin. ayaxani way ka tafadheeraatay dadka oo waxay u baahan tahay maalgelin dawladeed iyo hay'ado oo dadkii quruurixinayay oo daasadaha quruurixinayay way ka tafadheeraatay. sidaa daraadeed waxaan ka codsanaynaa xukuumadda uu madaxweynaha u yahay Siciid Cabdullaahi Deni iyo inay arrintan laga qayb qaato guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Puntland, gaar ahaan gobolka Bari. waxaan leeyahay wax qabad wanaagsan, wada shaqayn wacan iyo in alaaba la hawlgeliyo arrimaha bulshada. deegaan beereedka Barookle, dhud, garaac iyo Carmooyin ayuu dhammaantood saameyn xoogan ku yeeshay ayaxani, kaas oo waxyeello gaarsiiyay dalagii kala duwanaa ee sanadkan ay beerteen dhammaan beeralayda deegaanka degmada Carmo. maxamed Barasciid Maxamed Dadaal, wararka iyo muqbaahiyaha dowladda Puntland, magaalada Carmo.